بسم الله الرحمن الرحيم ستيل وجالس بدنا يقعد كدير دبا مرلبات أما مرصدحات وحن سلام يا شعب كصوماليدا ذلك يدبدا موضوعنا كلا وحنا نقولنا يا سوشيال ميديا ها دبتوين ككتيرة هي حقوق آدمها دولة دجان كصوماليدا سوشيال ميديا مركان لنا هاي هرتا ومن دي لبا أفله لنا عادوا أديك ستو حداد حمانو أديك ستنا واتكوهلي حداد وانا وأديك ستنا واتكوهلي وواي مكا علمي بات كبران كرتا وعدي بات كبران كرتا وحياة فربض ما تكفى يديسن كرتا wanaagna dadka waad fari kartaa xumaan iyo fidnana waa laga fidin karaa marka social media qaabkaynu waanu adeegsano totally wuu khaldan yahay waqtigii hore iyo nidaamkii hore wuu khaldanaa ay baynu ka baranay inagu dhinka xun soo baa lagu caayay fidna laga fidinayay dad baa la iskaga dirayay maxay yimid marka tay hore ku seexal dheeraan mayno way isbedel baan dooninay isbedelku markuu yimid qodobadii ma isbedeleen maya isma bedelin budgetkii shalay lagu bixinaya waa lagu bixinayaa wali sadahum baan la caayinay fidnadii way socotaa dadkii sida waa la isugu dirayaa akoonadii faraha badnaa oo afaf badan ku kala qoran tii hore af Soomaaliun bay qori jirtay wartani oran bay qortaa oo xabashi bay qortaa oo ingiriis bay qortaa boqol wax bay qortaa boqol activiste maalin walba fidna laga dhaliyaa dadka marka nidaamka loo adeegsanayo social media-ha xagga bulshada maanta dhibaatada u sii weyn kama jirto laakiin xagga dawladii baa kharash ku bixinaysa in fidna la dhaliyo siyaasad baa loo adeegsanayaa war ma waxaad aragtay dad dhan oo inta loo yeedho sawir inta la galo la oranayo waxa iyo waxaasan isla qaadanay waxa markaa muhiima waxa jira maanta oo arkaysaa dad fara badan wax markaad saluugto haddii aad sixi kari weydo waa inaadan sawir dambe la gelin oo aad ka durugto dadkana aad u sheegto afarun baa loo tagayaa sawirun baa la soo galayaa sawir walbana waxba lagu dul qorayaa war odayaashan dhaqanka ee sawirka inta la galo haddana sawirkoodii wax lagu dul qorayo sawiradiina ilaashada hadda ka hor waagii hore dad badan baa ku qolquli jiray hadda nin kastoo taga isagoo calacalayo ka imani haddana mid kale ku noqoni war maxaad ka doontay maantana waa dadkii markaa xanja meel kaga wada dhagan xanjada iska daaya kabiya xarkeed baa la isla tuuraa marka social media maanta dawladdu qaabka u adeegsanaysa waa qaab aad u foolxun dadkii baa la isku dirayaa fidna laga abuurayaa siyaasad baa laga dhiganayaa dawladda waxaan ku naqaanaa waa inay leedahay meel sharci ahaan warka laga baahiyo madaxweynuhu waa inuu leeyahay meel warka laga baahiyo hadda SRTV Soomaha channelkii dawladdu iska lahayd warka ma halka la mariyo maxaa siraaj lagala doonani waxaad garanaysaa waa warda been oo fidna lagu abuurayo inta halkan dad lagula shiro yaa bogga siraaj loo diri oo la oran saa iyo saa soo qora waa dekan waa kii dawladda oo madaxweynaha baa saayid lama oran karo laakiin ka uu dafiri kara waa nidaamkii Cabdi Maxamuud uu abuuray shirka markaad ka baxdo shirki maadaama wixii aad aaminsanayd halka politically aadan kaga hadli karin wixii dhabtaa uu aaminsanaaba haddana xaggan kale kaga hadlaya waa jahwareerin weeyaan marka dhinaca waxba iskama bedelin maxaa kale wax buuran iska bedelin fidnadii la abuuray waxba iskama bedelin dadkii fitan baa loo abuuraya 12 maanta budgetka dawladda ugu badan wuxuu ku baxaa group waxa jira ag fadhiya boorta wax kala ma qabtaan iyaga laftoodu anu imka afar qof baa ku hadhay afarta qofna anu fariin baan u diraya afarta qof damiir fiican baan ku ogahay laakiin damiirkiina ha gadanina war waxaan beenteed qoraysaan iska daayno ilaahay intaad ka yaabtaan waxaad goobjoog u tihiin war been aad goobjoog u tahay ma dhageysan kartid adaaba goobjoog waa ma Pakistan baa joogtaa Saadiga goobjoogga ee xaadirka amaha marka damiirkiinu wax noocan oo kala ah iska daaya war beentanaad qoraysaan ee idin dhiibaya iska daaya beentanaad kala diraysaan iska daaya ilaahay idinku dhaariyay waa dadku maanta xaqiiq baa loo baahan yahay waan soo daalnay marka dhinacaana waxba iskama bedelin sidii un baa dadka lagu kala dhiibaya halkaasna way socotaa maxaa kale waxba iska bedelin waxa la leeyahay xurriyatul qawl war xurriyatul qawlka dastuurka Itoobiya ku yaalaaniyo wax qof keenay maaha xurriyatul qawlka dastuurkan wadanka la ansixiyay ee xilligii federalismka la ansixiyay uu ku yaala xurriyatul qawlku waa lagu dhaqmi jirinoo qofkii hadlay baa la xiri jiray tiina maxaa kalifay Itoobiya lacag bay ku qaadataa deeq bay ku qaadataa xurriyatul qawl baan keenay ku dhig xagee haduu xurriyatul qawlka laga keenay xurriyatul qawlku waa lagu qasban yahay fandigii baa inaga xidhan ba dad gacanta la hayeen oo kun kor loo hayeen nahay waa la sii deynba xurriyatul qawlka marka budget baan ku qaadanaa fandi baa inaga xidhan siyaasad loogu tala galay dadku inay ka faa'iideystaan ma ahayd dawladda lafteeda u baahan
nidaam walba dawladdu waxay u qasban tahay iyada lafteeda ayuu dan ugu jira marka xuriyatul qowlki laftiisa haddana wuu sii watiiteeyaa xagga saxaafadda waad aragteen de ismaaciil buurgaabo war official oo caruurtu ay qorayso oo universal uu u diray baa lagaga joojiyay shaqadii dad fara badan oo activistiyaal saas oo kale la garaacay baa jira war human rights Ethiopia kuwii ka shaqeynayay baa meel wadanka kamid ah lagu garaacay isha dhaweyd anigu tan xuriyatul qowlku kaliya ma aha laakiin xuquuqul insaanka oo dhan ba dib baa ka jira qolleejii marka dib baa ka jira qaxootiga degan intaasoo 100,000 baa degan caafimaad ma haystaan biyo ma haystaan xuquuq ma haystaan xitaa hay'adaha yimaado waa laga qariyaa dhibaatooyin noocaas ah jira adeeg dadkii ma helo wax la hayo ma jiro haddana dawladdii waxay ku faani goor walba xuriyatul qowlkii baan fasaxnay xuriyatul qowlka xageed ka fasaxday qofku waxaad xaq u leedahay privilege inaad ku siisaa ma oo ugu mahadiso war dastuurkan ay noo dhaxeeyay dastuurkan idinka qore dawladda qortay dastuurkan baan ku wada soconaynaa marka laakiin privilege kuma helaysid hebelow iska hadal iyo laguma xidhayo ta kale maxaa qofka loo xidhi waaba muwaadin buuga civic education ka maxaa ku yaala iskuulada lagu dhigto muwaadinka inuu wadankiisa iyo xaaladiisa la socon karaa ku taala marka social media ha dawladda qaabka adeegsata uu khaldan yahay xuriyatul qowlka waxaad moodaa isagana cidhiidhi in la soo gelinayo intaas qof baa maalin walba hadda sidii waqtigii hore suuqa loogu hanjabaa wax waqtigan wax iska kan bixinaya maaha waayo nidaam noocii oo kaliya inuu samaysmo de Ethiopia ba ka samaysmi karin sawa dawlad deegaanka Soomaalida aan waxaan aaminsanahay kan loo hanjabayo iyo ka wuxuu hanjabaya kan loo hanjabaya ka xoog badan maanta adkaaga inaad qarisa maaha oo go intaad huwantaad hoos u iido oo ninkii ku dila u heeliso lama baahna waa inaad kor u hadasho oo tidhaahdo ninka isaas ugu yidhi dareyska la isku hanjabi karo kursigana la isku hanjabi karo war kursigan iyo dareyskan iyo wax walba mutual understanding kaliya tan wadanku maanta ku wada socon kara inta la wada fariisto in la yiraahdo madaxweyne waad khaldan tahay hebel waad khaldan tahay wadadan iskama kan bixinayso miiskan in la wada gorfeeyo marka waxa loo baahan yahay social media ha dawladdu fidnada ay ka abuuraysa in ummadda ay ka deyso war ma waxaad aragtay shalay toole wixii la yaabanaa un baa maantana dadka loogu celiyay cajeeladii un baa dib loo dhageysanaya waa sheekooyinkeeni gudan iyo rogon baa maantana dib leenoogu bilaabay page tababar baa lagu jiraa marka anu waxaan leeyahay social media ha bulshaduna nidaamka u adeegsanayso ee khaldan qabiilka social media ha qabiilnaad ku cayda ma aha shakhsinaad ku cayda ma aha laakiin fikir constructive waa inaad samayso dawladda waad dhaliili kartaa adeeg xumada waad dhaliili kartaa laakiin shakhsi ma cayi kartid madaxweynaha shakhsiyadiisa wax kama sheegi kartid adeeg bixintiisa wax ka sheegi kartaa marka nidaamka isagoo saa u socda ayaad moodaa in dawladdu dadka ay gardaraysanayso dadkiiba gardaraysanaysaa iyadii baa wixii wada shalay toole waayo dadka hadda damcada inaad been ku qulaamiso dhibaatooyinka jira markuu nidaam isbedel yimaado nidaamkii haddii laga dhigo sida dukaanka alaabtoo kale oo kambanigaaga brandiga adigu aad leedahay inaad xayeysiisato dad baa lasoo importi gareeyo la rabaa in lagu qulaamiyo dadkii waayo qofkii kale laftiisa ayaa dee 12 sano wadanka ka maqnaaba marka dad kale ayaa la doonaya in lagu qulaamiyo kuwana la rabaa in laga gado haddii in yar ku sii dheeraan maayo imika xisbigii hore aanu lahayn qaadhanka loo soo bixinayay gaadhigii xisbiga oo caadi xisbiga uu ku qoran yahay baa la midoobay bibi rakaabka saaran laakiin rakaabkii aan naqaanay ma aha waa rakaab kale waxa lagu leeyahay xisbigu waa xisbigii gaadhigu taranku waa tarankii dadkii un baa laga dejiyay dad kala la saaray waayahay ma labada magac baa midoobaya mise waxa midoobaya dadkii xisbigan ka tirsanaa hadday tahay in labada magac midoobayaan daaimaka xaggan dadka la geliyay waa urur siraaj la yiraahdo laba ururna isma qaadan karto never arrintan aadka uga soo horjeedo in waliba aad toos ugu qabanayno qofku laba ideology ma wada wadan karo laba xisbi isma geli karto xisbi siraaj la yiraahdo nin u dhaartay political program koodi muxuu yahay dawladdu waa in arrinta hoos u eegto arrin la dheelsan kara ma aha xisbigii dadka inta rakaabkii laga dejiyay baa rakaab kale la saaraya warkani waa kuma waa hebel ma aha war hebel gadna ma lahayn mana sida mana madoobayne may waa hebel maadan garanayn marka dhibaatada maanta jirta waxyaabo noocaas oo artificial lagu qulaaminaya adigii oo arka dawladdii baa been gadaysa beentii maanta si dhiyar ba loo khashifin karaa war qof suuligan ku jiro hadda ka soo baxaya ayaa been laga sheegaya oo looranaya hebel inta sawir lala galo
yaa la odhanayaa oo say suyid niman baa shalay inta la soo qaatay sawir lala galay kolkaasaa la yidhi say yidhaahdeen eeg nidaamka dimuqraadiyadda ajendo gaaran ka dhigi doonaaye laba xisbi ma kala awood badna xisbiga talada haya iyo xisbiga shalay certificate-ka qaatay waa laba xisbi un xisbi uma yeedhin karo waxa ha soo sharaxina waa dembi xisbiyada laftooda tahay inay ku dacweeyaan qofku kursigu kuma siinaya xuquuq aadan lahayn laba xisbi un baatiin xisbigaasi dadku soo sharaxanayo adig kuma taalo midda kale dembigu ma aha wax qofku uu go'aamiyo dembiga maxkamad baa go'aamisa qofka waa la dacweyn karaa laakiin maalinta la odhan karo waa dembiile ama lama sharaxi karo waa marka maxkamada ay ku dhawaaqdo ay tiraahdo hebel waa dembiile midda kale ka yaabanahay dembigu ma wax sida booliga campaign-ko kale loo ololeeyaa oo inta guddiya la kala diro la yidhaha soo ururiya ma dembi ba waxaas mise dembigu qofkii laga galay bay tahay intuu maxkamadaha iyo xeraalintii sharciga tago inuu dacwoodo kabacdina isa isku dacweeyaan waxa weeyaan waa nin daad qaaday xumbo cuskayo markaad aragto in fikir ahaan lagaa saxsan yahay aqoon ahaan lagaa saxsan yahay tiradii dadka lagaaga cod badan yahay inaad mataqaana dadkii wanjasho dee waayahe shalay nidaamkii hore wanjal baa lagu eedeynayay maantana haddii wanjalku uu wanjalkii u yahay maxaa isu keen bedeleen waxaa loo baahan yahay caqli saliimay dadkan ayaa loo dagaalamayay waxa la rabay maskaxda in lagu xoroobo waxa la rabay wax aad ii sheegaysa iyo waxaan arkay inay isu kay daboolaan marka mawduucanna waxaan jeclahay inaan intaa ku soo gabagabeeyo mar labaad waxaan salaamayaa shacabka Soomaalida aad iyo aad baad mahadsantihiin